maanta ma hadnaqayno halkan ka jeedinayno waxa ugu horeeya oo mudan oo ugu munaasabsan madaxweynaha xilka ka sii dagaya ee Muuse Bixi Cabdi madaxweynahaas waxaynu ugu mahadnaqaynaa uguna ducaynaynaa kuna sii sagootiyeena inuu labada doorasho isa saaran ee culayska iyo hawsha badnayd inuu maskax iyo xoolo iyo xoogba ku bixiyay inay nabadgelyo ku qabsoonto kuna dhamaato haddana khaatumada wax walba ugu khayr badane qalbi wanaagsan ku qaato wixii ka soo baxay waxaynu leenahay waxa xikmad xeel dheer ay tahay waxa la yiri al-ibratu bi kamal an-nihaya la bi naqs al-bidaya waxa mu'tabarka qiimaha leh wax lagu tixgeliyaa waa dhamaystiranka nihayada shaygu wanaag inuu ku dhamaado iyo dhamaystir laakiin nuqsaanta iyo inta hore ma aha waxaynu leenahay hatta wixii ka soo khaldamay Allah ka dhaafee hadaad maanta ku gabagabaysay gunaanadka quruxda iyo qiimaha badan hadaad ku gabagabaysay sharafta iyo wanaaga oo adoon bidix iyo midigtoona eegin aad tiri waan qaato waan aqbalay dadkana aad ugu baaqday dawladda cusub in la isbarbar taago waxaanu ku leenahay sharaf iyo gobonnimo ayaad waxa weeyaan xilkaagii ku gabagabaysood ku sagootiday sharafna ummadaada waad ku dhex joogi doontaa waayo ninka madaxweynaha markuu wanaaga ku dhamaysto xilkiisa waa arrin mudan in lagu maamuuso waxa weeyaan loogu duceeyo looguna mahadnaqo isaga waxaynu ku dhaafaynaa maanta ducadii reer Soomaaliland oo dhan baa kugu dhacday haday culimo tahay haday caamo tahay haday madax tahay haday mijo tahay haday oday tahay haday caruur tahay haday ciroolo tahay haday rag iyo dumar tahayba nin alla ninkii cabsanaya wadnaha farta ku hay kolka tiri waan aqbalay ayaa salka dhulka la dhigay markaas uu duca kugu may dhicin ducaduna caloosha ayay ka dhacdaa intaanay carabka ka dhicin intaasaan ku dhaafaya madaxweynaha sii socday misagootiyeeno